السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبا سلام دمانتين جنرالك داونيسان waa Sunrise 626. haddii aad channelka ku cusub tahay soo dhawow, fadlan subscribe saar si muuqaalada aan soo dhigno aad u aragto. Gambaleelka yarka ana ku dhufo si fariinta ay kuu soo gaarto mar walba aynu muuqaal soo gelino. asxaabta muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin ku tuso sida kombiyuutarkaaga culays dad ku aragtid uga qaadi lahayd dhan kastaba. marka kombiyuutarkaaga culays aad ku aragtid xilliga isticmaalaysid sida uga qaadi lahayd ayaan ku tusi rabaa. waxaa kugula talin lahaa inaad farsamadan soo socoto isbuuc walba hal mar aad kombiyuutarkaada ku samaysid si kombiyuutarkaaga speedkiisa ama performancega windowgaaga uu u noqdo mid heer sare. okay, waxaa ku bilaabaynaa marka ugu horeyso calaamadda waxaa imaanaysaa search buttonka meesha wax laga search gareeyo ayaa imaanaysaa. waxaa ku qoraysaa run ayaa ku qoraysaa. run markaa ku qortid windowskaas yarkaa kuu soo baxay ku qoraysaa meeshan gudaheeda temp ayaa ku qoraysaa. temp markaa ku qoratid waxaa leedahay enter. okay, intaanoo file ah kuu soo baxday. intaanoo file aba looma baahno, waxaa loo baahan inaad kulligood aa wada dhileedid. waxaad u dhileedi kartaa laba siyaab ayaa u dhileedi kartaa. inaad kulligood intaad mouseka intaa saas ah ku jiidid kulligoodba asaas u wada select gareysid, ama waxaa u select gareyn kartaa si shortcut adiga keyboardka isticmaalaya control A ayaad u select gareyn kartaa ama u dooran kartaa kulligood kadibna delete ayaad ku dhufanaysaa. way baxayaan kulligood. wixii meesha ku haro oo bixi waayana dabcan mar kale ku soo celinaysaa waadna iska dhileedaysaa. step koowaad oo kaas ah. midka labaad isla meesha hadda ayaa ku soo laabanaysaa run ayaad ku qoraysaa meeshaas. run haddaa rabtid si kale oo shortcut u soo geli kartaa. waxaad dhihi kartaa window button iyo waxaad la taabanaysaa r ayaa isla taabanaysaa kadibna uu ku soo baxaya. haddana waxaa qoraysaa calaamadda percentage-ka kadibna temp ayaa qoraysaa. haddana percentage-ka ayaad u dambeysiinaysaa. tempadii hore oo 2 jeer percentage laga hormariyay lagana dambeysiyay ayaad markii labaad noqonaysaa. okay, marka aan qoro haddana intaan dhana ii soo baxday. intaan sidoo kale aan yeelayaa kulligood select ayaan leeyahay kadibna delete ayaan leeyahay dhammaantood. delete ayaan leeyahay. wixii bixi waayo mar kale intaa ku soo noqotid waa iska tirtiri kartaa. okay, stepka saddexaad isla meesha hadda ayaa ku soo laabanaysaa. kadibna waxaa ku qoraysaa clean mgr ayaa ku qoraysaa. waxaad dooranaysaa kadibna diskiga drive-kaaga dooranaysaa. drive-kaaga waa c ay wax ku jiraan. koley haddii drive kale wax ku jiraan aad rabtid waa bedelan kartaa oo drive-ka ay wax ku jiraan baad dooranaysaa mar walba. drive-ka ay wax iigu jiraan hadda waa c drive. kadibna okay ayaan leeyahay. wuu ii soo saaraya markiiba inta file oo la rabo inaan tirtiro. files to delete ayuu leeyahay. intaan filena iska deleedid waaye. checkboxkaas yararka ah ayaan tig saarayaa kulligood. kadib markii aan dhameeyana okay ayaan leeyahay. okay, markaan dhahna delete files ayaan sii taabanaya. markiiba wixii file ah ama wixii wasaq oo dhan oo ku jirto faylasha aan loo baahnayn oo dhan uu ka tirtiraya kombiyuutarka maskaxdiisa. dabcan waa sugaysaa inta uu ka dhameynayo inaad cancel gareyso looma baahna. inta uu ka dhameynayo waa inaad sugtaa. waqti ayay qaadan kartaa 5 minutes ay qaadan kartaa 10 minutes ay qaadanaysaa. marka waa inaad sugtaa inta faylasha uu ka tirtirahayo oo idil. marka dulqaad ayaa lagaaga baahan yahay. waa u dulqaadanaynaa oo kaa uu dhameeyay. okay,
markii uu tirtiro ka bacdi haddana waxaa kusoo laabanaysaa meesha searchka ayaa kusoo laabanaysaa, waxaa qoraysaa defragment ayaa qoraysaa defragment. markii uu soo qabtay defragment and optimize drives, meeshaas ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid C drive-kaaga ayaa dooranaysaa, haddana C drive-kaada ayaa dooranaysaa. haddii meel kale wax kugu jiraan volume-kaas waad dooran kartaa. haddii meeshaas kale wax kugu jiraan ayadana waad dooran kartaa, laakiin drive-ka ani waxay ku jiraan waa C drive. wakaasa last run waa never run, hal mar xataa lama run gareenin. current statusna waxaa waaye fragmented. marka waxaan dhahaynaa optimize ayaan leenahay. You can optimize, waa ujeedaan kor. You can optimize your drive to help your computer run more efficiently. Optimize waa dhihi kartaa, haddii kale analyze-ka gees ka jirto waa ku dhufan kartaa sida u analyze gareysid oo u ogaatid wixii loo baahan yahay inaad markaas aad qabatid. Optimize ayaan niri, markiiba faylasha oo dhan ayuu run gareynayaa si computerkeyga markiiba uu culays uusan iiga yeelanin oo si dhaqsa iigu shaqeeyo mar walba aan isticmaalayo. Okay, waa sugaynaa waqti ay qaadan kartaa. Okay guys, markii uu dhameeyo markiiba waxaan leeyahay close ayaan iska leeyahay, waan iska xirayaa. Okay, muuqaalka intaas uu ka yahay, aad baa u mahadsantihiin daawashada muuqaalka. fadlan subscribe saar si aan ugu dhiirino inaan soo gelino muuqaalo badan oo tayo leh oo waxtarna idin leh. kambaniga Sunrise 626 mar walba wuxuu diyaar u yahay inuu idin soo bandhigo fiidiyoyo ama muuqaalo waxtar leh oo tayo leh oo idinkan idin anfaca oo wax ka faa'iidaan. muuqaalka haddii aad ka heshay like saar, fadlan haddii wax fariin talo iyo tusaale aad noo haysidna commentiga noogu reeb. daawashada muuqaalkan aad baa ugu mahadsantihiin. haddii muuqaalka uu ku anfacay asxaabtaada kale la wadaag, aad baa ugu mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.